Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa mid ka mid ah xadaaradihii ugu horumarsanaa ee ka jiri jiray labada Ameeriko. Waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah xasuuqyadii iyo dhibaatooyinkii ay reer Yurub ka geysteen labada Ameeriko. Waxaan ka hadli doonaa xadaaradii Aztec. Laakiin intaan aan u gelin muuqaalka haddii ay markuu ugu horreeya soo boqoto kanaalka halmaamin inaad subscribe saarto, like waa muhiim, siina share garay oo asxaabtaada la wadaag si ay ugu yaraan wax uga faa'iidaan. Aan u galno muuqaalkeena maanta. xadaaradii Aztec waxay ka jiri jirtay Ameerikada Dhexe, gaar ahaan waddanka Mexico qaybtiisa hoose ilaa laga soo gaaro Guatemala. Xadaaradan waxay bilaabatay sanadkii 1376 miilaadiga, waxayna jirtay ilaa 1521 miilaadiga, waxayna baaba'day xilligii ay gumaystayaasha Isbaanishku ay soo gaareen labada Ameeriko. Xilligii ay jirtay xadaaradaas, dadkii ku noolaa iskuma aysan aqoon jirin Aztec, waxay isku aqoon jireen Mexica. Magacaas waxaa ugu magac daray taariikhyahanada sababtoo ah waxay ka soo qaateen dadkii halkaa degi jiray oo lagu magacaabi jiray Aztlan. Waxaa caasimad u ahayd xadaaradii Aztec magaalo lagu magacaabi jiray Tenochtitlan. Magaaladaas waxaa la aasaasay sanadkii 1325. Magaaladaas waxay ahayd magaalo si cajiib ah u dhisan. Waxay ahayd magaalo ku dhex taal haro oo sida jasiiradii oo kale ah, waxayna lahayd 4 waddo oo waaweyn oo dhulka ku xira. 4taa waddana waxay ahaayeen buundooyin. Sidoo kale magaalada gudaheeda waxaa ku dhex yaalay ilo yaryar ama faro yaryar oo biyo ah, iyo sidoo kale waxaa ku dhex yaalay buundooyin. Magaalada markaad doonaydo inaad qayb kale u gudubto, qaybta joogto maahane waxaa u raaci kartay doon yar adigoo ilaha yaryar ee biyaha raacaya, haddaad doontana buundada ayaa mari kartay. Waxayna ahayd magaalo aad u qurux badan. Waxaa ku noolaa xilligii Isbaanishku ay imaanayeen tiradada oo gaarayda 200,000 oo qof. Guud ahaanna Aztec waxay ahaayeen markii Isbaanishku imaanayeen in u dhaxayda 15 ilaa 20 milyan oo qof. Dhanka diinta, Aztec waxay ahaayeen sanamyo caabud, waxayna caabudi jireen ilaah lagu magacaabo Huitzilopochtli, waxayna u yaqaaneen inuu yahay ilaaha dagaalka iyo qoraxda. Waxay lahaayeen macaabid badan sida masawirkan idin muuqdo oo kale. Masawirkan waa macbad sida haram u dhisan oo kale, haramyada Masar oo kale, wuxuuna ahaa mid ka mid ah macaabidoodii ugu waaweynaa ilaa maantana ka soo haray raadkooda. Aztec waxay sameyn jireen dhanka diinta inay ilaahooda u bixiyaan waxa la yiraahdo qurbaan, weliba qurbaan xoolo iyo waxaas ah maahan, qurbaano dad ah. Waxayna ahaayeen dadyowgii sanamyo caabudka ahaa ee ilaahyadooda u bixi jiray qurbaanada dadka ah kuwii ugu qurbaan bixinta badnaa. Waxaa lagu qiyaasaa in sanadkii 20,000 oo qurbaan oo dad ah ay u bixi jireen ilaahooda. Waxay sameyn jireen dadka markay soo qabtaan intay saaraan haramka meesha ugu koreyda waxay ka jeexi jireen xabadka isagoo nool qofka intay mid qaataan, kadibna waxay ka soo saari jireen wadnihiisa isagoo weli dhaqdhaqaaqaya, wadnahana waxay u dhigi jireen qoraxda. Sidoo kale Aztec waxay caan ku ahaayeen geedka loo yaqaan cacao-ga ee laga sameeyo shukulaatada, wuxuuna ka ahaa jiray agtooda geed qiimo leh oo qiimo weyn leh. Sidoo kalena wuxuu ahaa geedka ay wax ku kala bedeshaan ama lacagta ay isticmaalaan, iyagoo lacag macdana ama lacag warqada ama aanay aqoon. laakiin xilliga lacag macdan ama dahab jiri jirtay, iyagoo taama isticmaali jirin. Waxay isticmaali jireen cacao-ga iyo geedaha kale. Sanadkii 1504 miilaadiga waxaa soo gaaray Cuba nin lagu magacaabo Hernán Cortés oo hogaamiye ciidan ahaa. Waxay u soo magacaawday boqortooyadii Spain inuu wasiir u noqdo xaakimkii Cuba. Spain xilliga waxay gacanta ku hayday Cuba oo waxay ahayd Cuba mustacmarad hoos tagtay boqortooyada Isbaanishka. Sanadkii 1518 miilaadiga wuxuuna ka soo tegay sanadkii 1518 xeebaha Cuba isagoo u soo jeestay dhanka Mexico. Wuxuu watay 11 doomood, 518 raga iyo 14 madfac iyo 16 farda ah. Wuxuuna ka soo degay sanadkii 1519 miilaadiga xeebaha Yucatan ee Mexico. Xilligaasna waxaa haystay Aztec, laakiin ciidankii ka agdhawaa xeebta ma aanay ku guuleysan inay iska dhiciyaan Isbaanishka oo fardowladii Isbaanishka ayaa si sahlan ku jabiyay. Hernán Cortés maadaama ay ciidankii yaraayeen, waxa ugu horeeyay uu ku fikiro waxay ahayd sidii uu isbahaysi ku samaysan lahaa. 2 bilood wuxuu samaysanayay isbahaysiyo, wuxuuna helay qabaa'il badan oo Aztec necab. Sababtoo ah Aztec waxay qabsadeen qabaa'il badan oo dhulka degan, waxayna sameyn jireen inay dadka ku qasbaan inay ilaahooda caabudaan. Sidoo kalena intay ku soo duulaan ay waxay ka qaadan jireen dad afduub ahaan ay uga qaataan oo ay qurbaan ahaan ilaahyadooda ugu gowracaan. Hernán Cortés wuxuu ka faa'iidaystay arrinkaas isagoo qabaa'ilkaas isugu soo bandhigay inuu yahay bedel ka wanaagsan
Astiga. Dhanka boqorkii Astiga oo lagu magacaabi jiray Montezuma isagu wax go'aana ma uusan ka qaadan markii hore. Waa uu kala fahmi waayay nimanku ma dagaal ay u socdaan ma heshiis ay u socdaan. Laakiin sanadkii 1520 wuxuu go'aansaday inuu ugu yeero caasimadda oo marti sooro kadibna ay ka wada hadlaan waxa ay nimankanu doonayaan. Hernán Cortés iyo ciidankiisu waxay yimaadeen caasimadii Astiga Tenochtitlan. Markii ay magaalada arkeenna waxay la yaabeen quruxdeeda iyo sida ay u dhisan tahay. Markii ay magaalada yimideen wax isfahan waa la gaari waayay. Hernán Cortésna ugu dambeyn wuxuu sameeyay khiyaano. Waxay afduubteen boqorkii Montezuma lagu magacaabi jiray ee Astiga waxayna u qabsadeen madax furasho ahaan. Markii ay muddo haysteen waxaa ku kacay kacdoon ay Astiga ku sameeyeen. Sidoo kale madaxtooyadii Astigana waxaa hareerayay dad badan oo Astiga. Intii ay mushkiladda socotay waxay dileen Isbaanishku boqorkii lagu magacaabi jiray Montezuma iyo in ku dhow 100 qof oo kamid ah madaxweyntii Astiga ee ay ku qabteen qasriga boqortooyada yacni ay ku afduubteen markii hore. Muddo markii ay ku go'doonsanaayeen qasriga boqortooyadana ugu dambeyn waxay ka dhunteen xilli habeena iyagoo wixii xoolo ah iyo dahab ay hore u sii qaadan kareen hore u sii qaatay. Laakiin Astiga isla markiiba way ogaadeen waxayna u istaageen jidka iyagoo weeraro isdaba xiga ku qaaday. Arrinkaas oo keenay inay dilaan kala bar ciidankii Isbaanishka halka intii kalena ay baxsatay. Markii uu ka baxsaday caasimadda ninka lagu magacaabo Hernán Cortés wuxuu mar kale la kulmay ciidan kale oo Astiga oo jidka u galay. Laakiin markan fardooleydii Isbaanishku waxay ka adkaadeen Astigii. Wuxuuna ku guuleystay Hernán Cortés in qabaa'ilkii uu isbahaysiga la samaystay uu ciidan 10,000 kuna ka soo urursado. Bishii December sanadkii 1520 uu mar kale weerar dib ugu soo qaaday caasimadda. Waxay hareereeyeen Isbaanishka iyo ciidankii isbahaysiga ee la socday caasimadii Astiga Tenochtitlan ilaa laga soo gaaro bishii Agoosto sanadkii 1521 Hernán Cortés iyo ciidankiisu waxay marba mar qabsanayeen qayb ka mid ah caasimadda. Ugu dambeyn bishii Agoosto sanadkii 1521 waxay qabteen boqorkii cusbaa ee Astiga. Waxaa lagu magacaabi jiray boqorka cusub Cuauhtémoc. Waxayna dileen Isbaanishku boqorkii cusbaa iyagoo sidaa ku qabsaday caasimadii Astiga kana takhalusay boqortooyadii ama imbaradoriyadii Astiga iyo xadaaradoodii oo dhan. Intaa wixii ka dambeeyay waxaa soo gaaray dhulkan cusub ay qabsadeen Isbaanishku mawjado Isbaanish oo ganacsato iyo ciidan iyo isugu jira wadaadadii Kirishtanka iyagoo doonaya inay diinta Kirishtanka faafiyaan si qasaba iyo si caadi ah qofkii caadi u qaata qofkii diidan waa lagu qasbay. Laakiin meeshan su'aal haddii aan isweydiino haddii aan niri Astigu waxay ahaayeen imbaradoriyad sidoo kalena waxay ahaayeen meel ay ku nool yihiin dad ka badan 15 ilaa 20 milyan oo qof siday ugu suurta gashay Isbaanishku inay si sahlan ku qabsadaan. Marka koowaad Astiga iyo Isbaanishku waxa u dhaxeeyay farqi xoogan oo dhanka hubka ah. Astigu waxay isticmaali jireen seefo laga sameeyay dhagax lagu magacaabo zabaj. Waa seef dhagax laga sameeyay laakiin seef aan af lahayn aslan looguma talagalin inay wax goydo waxay ahayd sida budka oo kale. Astigu waxay ugu talagaleen inay dadka ku dhuftaan oo ku dhaawacaan kadibna qofka isagoo nool ay qabtaan kadibna ay qurbaan ahaan ilaahiyadooda ay ugu gowracaan ama ay caloosha ka jeexaan wadnahan kadib ay ka soo saaraan. Halka Isbaanishku ay wateen seefo bir ka samaysan oo af badan oo wixii ay ku dhacaanba laba u kala goynay. Dhanka kale waxay wateen Isbaanishku madaafiic iyo qoryo. Weligoodna ma aanay arag Astigu hub noocaas ah. Sidoo kale fardooleydii Isbaanishku waxay ka qaateen qayb libaax. Astiguna waa ay ku cusbaayeen fardoolayda sababtoo ah markii ugu horreeyay soo dageen ba Astigu waxay u qaateen inay yihiin fardoolaydu makhluuq nooc kale ah. Waxay u qaateen inay yihiin makhluuq korna bini aadamka ah hoosna faraska ma aysan u haysan inay dad caadi yihiin. Farqigaas ayaa wuxuu keenay in Isbaanishku ay si sahlan ku jabiyaan. Sidoo kale Isbaanishku waxay u keeneen Astiga hub ka qatarsan hubkii hore oo dhan. Waxay u keeneen cudurro sida cudurka furuqa iyo cudurka daacuunka. Cudurradaas oo xasuuqay intii ugu badneed Astiga. Waxay ahaayeen Astigu markii Isbaanishka ay qabsanayeen dhulkooda in ku dhow 20 milyan oo qof. Waxayna ahayd qarnigii 16aad ee miilaadiga. Hal qarni kadib 100 sano kadib qarnigii 17aad waxay ahayd tirada Astigu 1.6 milyan oo qof. Bal ka fakar dad hal qarni ka hor 100 sano ka hor 20 milyan hal qarni kadib ama 100 sano kadibna noqday 1.6 milyan oo qof. Hernán Cortés isagu wuxuu geeriyooday sanadkii 1547. Muuqaalkii maanta intaas ayuu ku egyahay tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagay amaana Allah.